Bismillahirrahmanirrahim. Mar kale iyo Tahin Isbairis kusoo dhawaada. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii ahaa talooyinka iyo Soomaalida Turkiga oo ahaa barnaamij aan ku wacyigelinayno dadkeena Soomaaliyeed, communitygeena Soomaaliyeed ee wadankan ku nool iyo kuwa u soo socdo. Maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago xog ama macluumaad ku aadan dhanka telefoonada iyo nambaro sidoo kale muhiim ah. Normally waxaan ognahay in isticmaalka telefoonka dunida hadda maanta dadka jooga ay ka siman yihiin, qof kasta oo isticmaalo dan ka gasho waxyaabo badan ay kaaga xiran yihiin. Laakiin waxa aad looga kala duwan yahay sida loo isticmaalo, akhlaaqda iyo anshaxa loo isticmaalo. Marka waxyaabaha muhiimka ah waxaa kamid ah in tusaale ahaan qof wacday dana ka leedahay ama xafiis dawladeed wacday ama xafiis shirkadeed wacday, marka koowaad waa inaad dhahdaa waxaan ahay hebel oo ka soo wacayo meel hebel, kadib aad dantaada u gudubtaa. sidaas la rabaa. Yacni hadii laakiin xafiis wacdo oo aad yani hebel ma jooga ama waxaas ma dhahdo qofkaas kuma fahmayo macluumaadkii adeega u baahaneedin inaad ka hesho way adkaanaysaa. waxyaabaha sidoo kale muhiimka ah waxaa kamid ah teleefankaaga codkiisa inuu xadidnaado oo meel badan aad joogtaa ama bas saaran tahay ama xarun dawladeed aad joogtaa ama isbitaal aad joogtaa, meel caam ah aad joogtaa, in teleefankaada marka la soo waco aanan qof kale aanan ku sameynin dhibaato iyo inuu ku dhibsado aysan abuurin. taasaa kamid ah waxyaabaha sidoo kale muhiimka ah waxaa kamid ah yani in teleefankaagi codkiisa uu ahaado cod balance gareysan oo xadidan oo ah mid la maqli karo, aynan xad dhaafna ahayn, aynan aad u hooseynin, si adigana lagu maqlo, adigana qofka aad la hadlayso aad u maqasho. waxaan rabaa inaan idin la wadaago telephone number oo muhiim ah wadankan markaad joogto numberadooda inaad ogaato ay aad muhiim u tahay, laga maarmaan ah. tusaale ahaan numberka ambalaaska ah waa inaad ogaataa meeshan wadanka ambalaaska hadii la wax dhacaan, qof kale wax ku dhacay ama adiga wax kugu dhacay, waa in ambalaaska aad dhul wici kartaa oo yani aad la xiriiri kartaa, waana 112 ayaad wicisa. sidoo kale waxaa muhiim ah numberka booliiska hadii dhib ku gaaro ama tuuku ku soo weeraro ilaahay ma dhahe ama qof dhibaataysan aad aragto, yani waxaad la xiriiri kartaa sida ugu dhaqsiyaha badan 155 oo ah numberka booliiska. waxaa jiro number dabdamiska. numberka dabdamiska waxa waaye waa 110 hal eber waay numberka dabdamiska. sidoo kale hadii ay dhacdo in adigoo maxaan ku yiraahdaa wada ku jirto ama gaari ka haysanayo ama gaari saaran oo shil dhaco, waxaa la xiriiri kartaa numberka traafikada iyo shilalka oo ah 154. sidoo kaleeto hadii aad joogto Soomaalidu waa dad tahriibiyaal ah, ilaahay ma qadaro in qof tahriibay oo xeebta iyo badaha dhibaato ku gaarto, laakiin hadii adigoo badaha wadanka Turkiga meel kamid aad joogto dhibaato ay kugu dhacdo, waxaad la xiriiri kartaa numberka gargaarka xeebaha oo ah 158. waxaan rabaa marka halkan inaan idin kula wadaago dhowr talo oo aad iyo aad muhiim u ah oo dad badan oo Soomaaliyeed halkan joogan ku dhibaatoobay ama ku dhacday. in aadan isticmaalin number telephone qof kale magaciisa ku qoran yahay. hadiiba aad isticmaalayso number, isku day inaad isticmaasho number telephone oo magacaaga ku diiwaan gashan yahay oo adigu aad leedahay. hadii number qof kale leeyahay aad isku daydo inaad isticmaasho, waxaa suurtagal ah in laga xiro ama shirkadu ku soo wacdo ama dhibaatooyin kale kaaga imaado. waxaan xasuustaa muddo dhowr sano laga joogo number telephone aan soo qaaday, magacaygaan ku soo qaaday, waxaan siiyay qof Soomaaliyeed oo maxaan ku yiraahdaa wadanka ka imaanay baan siiyay numberka. marka aad airportka ka soo degato igaala soo xiriiraan ku yiri, qofkii waan siiyay wuu qaatay. mar alaal markuu wadanka soo galay wuxuu bilaabay inuu numberkii anigu magacayga ku diiwaan gashanaa oo isticmaalo. muddo kadib waa la wacay, waxaa la yiri adiga hebel ma tahay? maya ayuu dhahay. tamaam, imaw numberka magacaaga ku diiwaan geli, imaw waa la dhahay. kadib wuu ila soo xiriiray, numberka magacayga kuma qornayn miya? baan ku yiri anigu magacayga ku qoran yahay, adiga numberkaas anaa iska lahayn, numberka la qaado magacaaga ku qor ayaan ku yiri. magacaaga ku qor ayaan ku yiri. sidii buu number cusub ku qaatay, magaciisana ugu qortay. marka dad Soomaaliyeed oo badan telefoonada laga xirto sababta ugu weyn waxaa kamid ah in ayagu ay isticmaalayaan number telephone oo magacooda aysan ku qornayn ay isticmaalayaan. arinta labaad, dad badan waxay sameynayaan telefoonka way rukumanayaan, faatuur ay ka dhiganayaan. faatuur markaa ka dhigatan lacag badan ku fuulaayo, adiga ma xadidi karaysid. tusaale ahaan waxaa ku furnaa faatuuro 1000 daqiiqo ah iyo 2 GB ah, waqti gaaban aad ku dhameysay, lacagta si xawli ay kugu soconaysaa. hadaadan ku fiicnayn isticmaalka aaladaha internetka iyo teknolojiyada ku fiicnayn,
waxaad arkaysaa adigoo lacag badan ku gashay oo inaad ka baxda ay adag tahay. Sidoo kale dadba waxaa jiro guryaha internet kusoo gashto magac iyo xog ayagu aysan lahayn. Markaad guriga internet kusoo gashato magac aadan lahayn ama qof kale kugu wareejiyo, waxaa fiican in xogtaada aad ku diiwaan gashto, aad isku diiwaan geliso, taas oo waxyaabo badan kaa badbaadinayso oo sharci ah. Marka waxaa aad u fiican in markasta aad isticmaalayso xogta aad isticmaalayso ay ahaato xog adigu aad leedahay, magacaaga iyo xogtaada ay tahay. Waayo wadankan wuxuu ka mid yahay wadamada aadka tiknoolajiyada u isticmaalo. Marka maanta aad isticmaasho number aadan lahayn, aaday u sahlan tahay in lagula soo xiriiro ama lagaa xirto ama dembi kale lagu galay adiga lagu raacdo. sidaas darteed waxaan rajeynayaa in macluumaadkan ay idin anfici doonaan, aadna ka faa'iideysan doontaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.